محاضرة يريان ربعين أن كدير يماشان محاضرة عوان كذا وحال يراها جيرود وقت يا إلى هاي إيجوان كتوصن هالسجن جيرود وقت يا إلى هاي هالسجن جوان كتوصن أي عوان كذا لنا محاضرة وحاين بدن دعلا أما حلية بدن تمادا qofku marka uu noqdo xaalad coladeed jirta ama qof uu hanjabo inuu isira haddaan barihiisa u fulin haddaba qofkaas xaq darada ku haysta iska celido waa dhimane maadaan noolaanaya waa dhaawacme inuu ayaan si noolata roonaan lahayd in badan bay dhacdaa laakiin kitaabka iyo sunnada waa lagu bayaanay arrinkaas waxa Ilaahay ku tilmaamaya quraanka geeridu waqti bay leedahay hal daqiiqo kama gadaal marto hal daqiiqana kama hor marto waxa quraanka Ilaahay ku leeyahay ayna ma takunu yudrikum al-maut walaw kuntum fi burujin mushayyada meel kasta iyo meesha joogtaan waad dhimanaysaan ha uga cabsanina inaad dagaalantaan adinkoo xaq u dagaalamaya dhufayska soo adagal meel kasta isku qari geeri ma ka badbaadaysi rajal laga maqbataas ina tira dagaal xaq adoo dagaalamaya ila dagaalka inuu xaq yahay waan ugu ogsoonahay la ku haysta diinteena nafteena iyo maalkeena iyo xorriyadeena adoo xaq u dirir inaad u dagaalami weyso si difaaci weyso waad dhiman waa doqonnimo iyo dulinimo mid ugu xashadeen waa caqiido xumo waxaa tahay muslim liito oo daciif oo tabar daran hadii taas ku dhacdo waxaan awood la saaray inaad wadada ku dagaalamayso ay xaq tahay iska xaqiiji waxa kale quraanka Ilaahay ku tilmaamaya ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني عيدك الصحيح عيمان أي جريدة دولة ضحي haddii xilliga geeridu yimaado kama hormari karaan kama gadaal mari karaan qabuuraha baxda ku yeelo tirada ka batay ee dadka ku duugan madagaala lagu laayay badan oo kamida way iska dhinteen in badan oo kamida hal daqiiqo waliga hadda carartid isra dagaalka iska ilaali cid kasta oo ku hangaguraysan aad u gumawdo مسيادة سجريدات يعني مسيادة ينبشر حلي بيلقوا ترجع واد لمن يسا وانو لمن ينا لكن أنت أنه شيء حرية كنا لو كراجة كنا لو كتابك يسند أدو كتاجا لو مسلم غير لأدوه لو وحديث البخاري يا مسلم نبي قال إنه كتب الإمام عليه الصلاة والسلام قفك أسبب أوركه يدي كدرة ayaa la qoray xilliga uu dhimanayo umrigiisa oo uurka hooyo markuu qofku ku jiro waxyaalaha la qoray waxa kamida inuu xilliga geeridiisa iyo ajashiisa kamida marka ajal la qoray xilliga aad dhimanayso inta aad noolaanayso adoo uurka hooyada ku jira inaad tiri hal ay gumaysto wixii la raba hal ay ka qaato hal ay siga kay dul taagnaado أنا أود ولا إن نسكع لي يا لمانه وأدل النمو وعقيد حمو وأضق النمو وهذين في سير الدفاع عن يدك سي مالك سقط قفك قيراء يد النمو إلى سي وحجر الناس يهن هوري حل هورن ولا هيرتان يمشي له ولا لا ولا هرتا meel hadii halabi ku yaale nin raga hamiye caala way hogashadiisi yani caale ama qof doqona waa qof iska on taagan aan masiir ka fakirin maxaa lagu haysaa ka fakirin maxaa dantaadu ku jirtaa kama fakaro ummadda oo dhan hadii isu yimaadaan meel kasta isaga yimaadaan inay kugu anfacaan shay iyagoo doonaya kuguma anfici karaan shay Ilaahay uusan ku qadarin شيء لا يوسف هو قدرين كما أنفع كرام وما دون هذا يسوي ماذا أيوة دون يجري كل ما تيان كما جارسين كرام
kuguma dhibaatay karaan waxa ilaahay ku qadarin caalamka dhan hadduu siman caalamka dhan ee baxda inuu burburiyo uu damco haddaan ilaahay qadarin waxba kama qaban karaan laakiin maasayahan Soomaaliyeed lahaa asagoo tilmaamaya in badan lagu dhaxarka ummadda qof jiraday lala tacaalay isbitaal la geeyay quraan la saaray hatta falaan fil markii dambe la tagay waxba iska bedeli diideen ومركة الماما يتاسو قدرت إلهي إني تهي وأسأل كتاب في سنة الشيغيني مركز إلهي بالله إسكبريا إلا سوى عن قاضي كريه تاسو كم وجنا وحي إلهي قدرين مرة إن اللي سيغينين لبا الله قرآن صاري من نوار رئيسين ديدي اسبتالك لبا الله دري ندوار رئيس الدوام مركو قاتل من نوار رئيسين ديدي أكيد الماما يولها سحل يا بكان هاجي وسيبي هيلب كاجا سانتي اللفتة وكبور دقوا صلايات مودو حدا سرروا وين لهاد عليك أو صغمي ساينس كي ولاد كي سرية سحفي فالكو يعني ساينس وعافمات كي ولاد كانوا قرآن صار كيو أولادي سحفي فالكو نوافال كي فلان في المركي اللي هذه مضى هبونينه وحكا سوي صنايان هدين لقوا صنعين وايو صحابة وحلو لقنا يا صديقي وينايه وحي إلهي لقصع صدا عافمات صغاني marka walaalayaal sidaas aan ogaana aan la soconno annagu dulmi ma rabno cidna ku gardarhoormayno dagaalkan xaqa u leenahay dulmigana la ku hayana ma ka cabsanayno mana ka daalayno dibna uma dhici doono insha Allah taala baxda nabadgelyo yahay marka 3 saac laga reebo hadana dib nabadgelyo u handanta insha Allah taala marka sida aan la socono waa aqeedo qofka islaamka uu leeyahay gardarro ma naqaan dulmi ma naqaan hore uga madaqmi jirin haddana ma doonayno dulli iyo dulmina ma qaadanayno insha Allah taala qofka soo naga mid ah ogaada hana dareensanaado geeridu inay xilli leedahay inuusan ka hormari doonin kana gadaal mari doonin laakiin wada qaldana ku dhiman adoo daalima ha dhiman adoo rabbi iyo rasuul caasiyaha dhiman marka واسرع سرع tilmaama ayaan kitaabkiisa sunnadu yiri midna sayahan Soomaaliyada oo tilmaamaya qofka haduu isira waan dhimanaysaa inuu hooga dunya la kulmo inuu gunnimo qaato iyo wuxuu yiri intii dunya ilaahay didbay oo dhaabay udubkeeda yaani intii adduunya ba jirtay dhulka la isku laayay ardada dhagaruwaati wal isdil jiruuleeye dulmi waa la isku weerari jiray dhimashada ninkii ka cabsada laga dhaqaaja ninkii sirayaadan dhiman wali sidib hoog iyo dul ninkaas ku dhacaho horumarkiisa ka taga marka qofna dili kara awalba marka soo dhimanayna xilligeena qofna naga hormari karo dhaawaca ilaahay noo qadarin qofna naga gaarsiin karo burbur hantiyeed oo ilaahay qadar ilaahay naga gaarsiin karo maalin kasta oo inta qofan waa jabaa baburku la rogmada corona ku laaya marka waxaan noo ballana inaan sida ogaano geesinimada qaadano qofka markuu aayaadkan iyo xadiisan fahmo waxyaalaha ka dhashay waxa kamid ah marka si xiriirkaas ay rabbiga u dhaxay inuu hagaajiyo waxa yar wuxuu ogsoon yahay inuu xil cayan dhimanayo daqiiqadana ka dhimanaya waqtigiisa suuragala wuxuu kale ku beeray geesinimo hay wuxuu dareensan yahay inaan xilligiisu marna ka hormari dibna u dhacay horan u dhacaynin marka waxaan noo balana ku dhaqan kitaabka sunnada cidii qaldan inaan ugu yeerno diinta wanaagsan ee nasiixada ugu yeerno hada ilaahay hanu qadarin aan iska celino inaan badbaadino markaas isku dayno aan tawjiihino diinteena iyo adduunyadeena aakhiradeena iyo adduunkana aan ilaashano markaas maslaxan u taagana baxda maslaxadeedu waa in la difaaco Soomaaliya midka ay ku jirto waa ka bixi doonta insha Allah taala ayadoo ka gaasay nabadana waa la gaari doonaa insha Allah taala